gudoomiyaha xisbiga u cid Faysal Cali Waraabe inaan waxba la isu qarin protocol ahaan waxay ahayd inaan shirka anigu idiin furo maadaama oo aan gobolka Togdheer xisbigu shirki uu ku qabsaday marka waxa iga horsaday xogayihii guud ee xisbiga isagana waan u ogolaaday waxa runtii sharaf weyn gobolka Togdheer oo ah in maanta lagu qabto kalfadhigii toddobaad ee shirka golaha dhexe ee xisbiga u cid sharaf weyn bay noo tahay gobol ahaan iyo ka magaalo Burco ahaanba aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xisbiga madaxdiisa kaadariintiisa marti sharafta iyo dadweynaha kale ee ka soo qayb galayba ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ugu rajaynaynaa inuu noqdo shir wanaagsan oo midho dhala oo ay ka soo baxaan waxyaabihii loogu talagalay ama ujeedada xisbigu uu ka lahaa oo u noqdo jamhuuriyadda Soomaaliland waxtar walaalayaal waxaad ogtihiin in aynu u gudubnay marxalad xisbiyo marxaladda xisbiyada ee aynu u gudubnay ee aynu muddada ku soo jiray waxaan ugu talagalnay inaynu kaga soo baxno marxaladdii hore aynu ku jiray ee qabyaaladda sida runtii iyagoo ku dhow xisbiyadu inay dabaqaan ujeedadii laga lahaa haddana waxaad yara moodaysaa in weli ay isku milan yihiin xisbiyadii iyo reernimadii haddii ay iskaga keen milmaan xisbinimada iyo reernimadu ujeedadeenna iyo hadafkeenna iyo yoolkeenna aynu leenahay ma gaari doono